السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد عن عافمات ساك وحن جلستنا لوداغو waxyaabaha wajiga aan ku nadiifsado wax yar oo kamid ah saaka waxaan sameysanayaa face scrub aan waqti dheer sameysanayo run ahaantii aad iyo aadna ii anfacay alaabtan waxaa uga maarmaysaa waxyaalaha kiimikooyinka leh waa alaab aad si fudud ku heli karto oo waxaad ka sameysan kartaa adeega gurigaada kugu yaalo qaado yogurt halkaas iigu jira in yaroo saliida coffee ku yaala isticmaali kartaa malab baaqulaas waxa iigu jira biyo yar oo qandac ah oo gacmaha isaga dhaqaayo markii aan dhameeyo iyo shukuma yar oo ku qalalsado maadaama wajigayga inaan arag gacanta ayaan ku tusayaa sida loo marsado gacanteeda marinaya qaadadii yogurtka ahayd waxaas hal qaado oo waxa waa yogurtka baleenka ah qaadada yarta halfkeeda oo saliid aan isticmaalo waa olive oil marka alaabtan ma aha mask waa scrub oo wajiga loogu talagalay inaad ku soo masaajid ama jirkaada meeshii aad u rabtid inaad marisid qaadada yar oo hani ah ama malab iyo koofiga adiga waa qiyaastii waa hal qaado oo qaadada weyn marka intaas isku soo qasayaa gacantayda ku tusaaya hadda marka sida loo marsado ayaan tusaaya alaabtan waa inaysan saaidna u qalalneen saaidna aysan u qoyaneyn marka waana inay oo si fiican ay u qoyan tahay hadii aad marisid wajigaada iyadoo qaleel ah waxa laga yaabaa inaad iska xagtid wajiga oo xagtin ay ka gaarto macnaha waxyaalo kale oo kiimiko iyo dhibaato kale kuma keenayo hadii aadan wajiga aadan saaid ugu xoqin oo markaasna wajigaada uusan ka xoqmin oo xagtimo ka gaarin damage si kaleeto oo dhibaato kale kuma keenayo alaabtan waxa loogu talagalay weekii hal mar waxaan loogu talagalay inuu ka qaado dead skinka skinki dhintay ayuu ka nadiifinayaa marka koofiga waa inaad ka taxadirtaa markii aad jirkaada aad marinaysid hadda aniga gacantayda waa ku masaajayaa maadaama oo waxaa aan videogan aan boobsiinayo waxaa loo malay inaa xoog aan isticmaalayo xoog ma isticmaalayay tartiiba ugu soo masaajaya gacantayda marka saas oo kale wajigana uu ka sii sanadsan yahay oo wajigaada waa inaad moor ka sii taxadirtid oo tartiib aad ku masaajid ilaa 5 daqiiqo adiga 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo markaasna biyo qandaca isaga dhaqdid saabuun iyo waxa aadan taabsiinin oo aad just biyo nadiif ah oo qandaca isaga soo dhaqdid markaas oo ku soo masaajaysaa 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo arinta waxay u fiican tahay waliba gabdhaha oo makeup ka marsado oo regular gareey makeup ka sayid u marsado hadhowti wajigooda wuxuu ka yeelanayaa boreskooda waaweynaanayo oo kiimikadii ka galayso wajiga marka kiimikadii uu ka nadiifinayaa iyo boreska xirmay iyo jirka skinki kor uu ku nadiifinayaa hadda waan iska soo dhaqayaa oo biyihii qandacaha iska soo dhaqayaa marka aniga waxyaalo kale ma marsado oo kiimika leh kareemada xataa way xadidan yihiin kareemada marsan karo oo badankood allergic baan ku ahay jirkayga somehow wuu diidaa waxyaalaha kiimikooyin kale oo iima baxaan aniga ma isticmaalo makeup ma isticmaalo waxyaalo kareemo badan xataa ma isticmaalo waxaan isticmaalaa way yar yihiin kareemada isticmaala xataa aad ay u tirsan yihiin marka kareemada aan carafti iyo waxaas laheena isticmaalaa gacantayda hadda saanay kusoo baxday aad iyo aad oo waxay noqotay jirka meesha maris waxay ku noqonaysaa nadiif oo waxa ka kacaya skinkii oo dhintay kaasoo ka haraayo waxay noqonaysaa meel jilicsan oo ay ku noqotay macnaha uu moisturize uu ku siinayaa malabka iyo saliidii hadii wajigaada iyo skinkaada hadii oil skin aad tahay oo wajigaada saliid ku leedahay saliida ka dhaaf oo inta kala marsan kartaa hadii aad wajiga qalalan tahayna saaid ku anfacaysa saliida oo si fiican ay ku anfacaysa run ahaantii marka alaabtan weegi hal mar
haddii aad ka fursan weydo oo aad jeclaato saaid haddaa uga taxadarayso oo wejigaada qof ka taxadaraya aad tahay oo aad u taxadarayo 2 mar ka badan ma marsan karto wiigii waa uun hal mar ugu fiican yaanyuur baan oo joogto guriga rasi baa la yiraahdaa hadda wuxuu yaarku booska yahay oo meelahan iska soo marmaraa marka shimbiriyo dhan naga cararay oo shimbiruhu bursadaayo meesha dhan shimbirihi waa naga guureen hadda anyway waa mahadsantihiin haddii aad fiidiyowga ka hesheen la share gareeyo walaalaha kale fadlan waa ku mahadsantihiin daawashadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu